munaasibadan baabuurta lagu guddoonsiinayay hay'adaha kala duwan ee dawliga ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare ururka qareennada haweenka Soomaaliland iyo gudoomiyaha jaamacadda Camuud wasiirka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydiid ayaa waxa uu uga mahad celiyay hay'adda UNDP sida hagar la'aanta ee ay gacanta uga geysato adeegyada kala duwan waxaana howlwadeennada hay'adaha la guddoonsiiyay baabuurtaasi uu ku dardaaray in qalabada kala duwan iyo baabuurtaasiba ay ku dadaalaan sidii ay u ilaalin lahaayeen isla markaasina ay u daryeeli lahaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnihii kale ee mas'uuliyiinta ee iyaguna deeqdan la guddoonsiiyay ayaa waxa iyaguna sheegeen in ay tahay deeq muhiim ah oo dhinaca isku xidhka isgaarsiinta iyo dhinacyada kaleba wax ka tarasa waxaana ay uga mahad celiyeen hay'addaasi UNDP gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mas'uul sare oo ka socday hay'adda UNDP oo sheegay in hay'addoodu ay taageero hiil iyo hooba la barbar taagan tahay hay'adaha kala duwan ee dawliga ah